ayay taabteen idinkana waxaan aaminsanahay in dad badan oo halkaa ku nafwaayay ay idin taabteen xanuunkaas ay sameeyeen argagixisada su'aal baan isweydiiyay xaqiiqdii culimadii ugu wanaagsaneed waa haysanaa dalka qof kastoo Soomaali ah gabar iyo wiil hooyo iyo aab diinteena qalbigeena waa ku xoogan tahay diinteena waa aaminsanahay aad bay u yar yihiin inta aan salaada dukan oo shay ugu horeeyo islaamka ah dadka Soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol tukada haddana waxaan la yaabanahay in qulubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ah ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours marka su'aashu waxay tahay sidee lagu gaarsiiyaa qulubta dadka Soomaaliyeed inay xaqa u Allah tuso haddaan wax yar tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay weli se waxaan nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyay kii u soo farsameeyay iyo kii soo alifayba wali waa nool yihiin aaminsanahay walina way nagu dhex jiraan walina kama danqanaynayno hooyooyinka Soomaaliyeed waa ku carruur waayeen carruurtii Soomaaliyeedna waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tiradaba ha yaraatee oo ka dhacay dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho halkan waxaan rabaa in aan culimada Soomaaliyeed fariin uga diro waa runtood diintu waa aabihii na soo gaarsiiyay culimadeena waa shuyuuqdeena Allah nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyay oo qalbigayga taabatay in badan oo idin kamid ah qalbigiina ay taabatay oo shiical dheer soo jeediyay horta Allah ay nagu anfaco culimada doorkooda ugu weyn waa run waxa loo baahan yahay inta badan maalmaha jimcada inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo inay dadka waaniyaan inay dhalinyarada waaniyaan inay hooyooyinka waaniyaan ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka waxa kale oo uu sheekha hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteennii waa jecelnahay haddana madaaristeenu meelaha ay ku yaalaan waa wadooyinka dhexdeeda ay ku yaalaan oo qiimo nooguma fadhiyaan iyadana inaan dib ugu noqono sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu quraanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso taas waa muhiim waay tan labaad aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xoogooda ay isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaq uga sheegi lahaayeen oo waxay aaminsan uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimada ka codsanayaa dhinaca dawladda haddaan u soo jeesto waa run wax kasta horta waxa ka horeeyo in aan aaminsanahay dastuurkeena shariiciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsanahay in waxna hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka nagu haayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waay waxa kale doorka dawladda ah in ay sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si ay u soo ogaan lahaayeen ama u soo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah waa in sare loo qaadaa waxa kale oo iyadana kamid ah in ciidamada amniga la faro maxaa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo inay cadawga argagixisada ay ka soo gali karaan shalay waataan furnay wadooyinka qaar oo tijaabo ahaan loo furay fariin ayaan halkan shacabka uga diray waxaad moodaa shacabka iyo ciidamada amniga ee walaalaheen ah inaysan lahayn xarig toosan waxaan ka codsanayaa shacabka walaalihiin waayo ciidamada qalbiga u fura la shaqeeya u sheega meesha uu dhibka ka soo socdo kan dariskiina ah kan idinka fog kan wiilashiina kamid ah ee fidnada wada inaad u sheegtaan shacabka Soomaaliyeed ayaan iyagana ka codsanayaa ugu dambeyn argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istiraatiijiyad ay ku leynayaan maxaa la dhahaa shacabka Soomaaliyeed waa inaan annagana la nimaanaa dawlad ahaan istiraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortagi karo argagixisada istiraatiijiyada ay wataan mid la mid ah waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meesha rabtaba ahaatee
in iyadana caqabadahaas oo meelaha ku xiran yihiin laga soo afjaro. argagixisada inta badan hadda waa aragteen dhibabka ugu waaweyn waxay isticmaalaan gawaaridaas waa laga kireeyaa ama qof walaal ah siiyo ama qof maxaa la dhahaa ehel ah ayay ka soo qaataan. marka waa inaan iyagana xoogga saarnaa oo gawaaridaas aan wasaaradda dawladda ahaan aan xoogga saarnaa sidii gawaaridaas loo samayn lahaa maxaa la dhahaa center laga ogaado cidda kow laheed cidda labaad cidda saddexaad ilaa laga helo meesha ay ka timid arrintan si loo soo daba jaro. gunaanadkii waa mahadsan yahay wasiirka iyo wasaaraddiisa awqaafta iyo arrimaha diinta oo garabkayga bidix taagan. mahad ayaan u soo jeedinayaa sababtoo ah maanta ducadan halkan ka dhacday iyagaa soo diyaariyey. ilaahay ajar ha ka siiya inta dhimatayna ilaahay maalinta iyo maalmihii kale waxaan ilaahay uga baryayaa naxariistii janno inuu ilaahay ka waraabiyo. aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan aan ilaahay barino waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.